يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامنا دمان ميل والبوت جوكتان وإن السلامنا وولالكي شاكر ومسكينكي الله وحين ليهي ميل والبوت جوكتان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله إن مدة أيام كلام مغنين دبان هذا اسمه صار نقني waxayna leeyahay meel walba joogtaan ba ilaahay ina barakeeyo ilaahayna ha inin xariisto dhammaan meel walba joogtaan Allah noo dambi dhaafo maanta mawduuceena ama tawbigeena qisal al-ibra qisadahan aan inii sheegayo kutub bay ku qoran tahay waa qisas waaqica oo dhacay hal qisan ku sheegi oo wanaaga marna u lumeyn haweeney lacag lahayd oo taajirad ahayd baabuurkeeda iska wadatay dariiq bay mareysay waa waqti maqribka soo dhow dhulka roob baa isa soo haysto dhulku uu soo madoobaanaya magaalada way ka baxsan tahay lacag fiicanna way wadataa waana haweeney taajirad ah dariiqii ay socotay baabuurkii baa ka kharaabay oo ka joogsaday dariiqa dhaxdiisa way istaagtay dhinac bay iskaga joojisay gaariga dhinac bay u baxday waxay doontay intuuna dhulka ku madoobaanin inay iskaga tagto meesha oo magaalada gasho inay raadsato wax baabuur oo sii qaado inay wadada intay istaagto wax baabuur oo sii qaado baabuur baa soo maray xoog buu ku dhaafay baabuur kale ayaa soo maray xoog buu ku dhaafay ayada oo yaaban oo roobkii u soo tixtiixayo ayaa waxa soo joogsaday baabuur aad iyo aad u liito aad u foolxun ayaa soo joogsaday meeshii ay taagneed ninka wada daal baa ka muuqdo waa nin soo rafaaday way shakido waxa istiri baabuurkan maad kortaa mise waad ka joogsataa akhiiran go'aan waxay ku gaadhay intuu roobka ku di'i lahaa intuu madow ku soo gali lahaa inay iska raacdo way fushay baabuurkii way cabsatay markay ninkii aragtay laakiin ha cawlaado ha fool xumaado baabuurkiisu ha liito laakiin waxay aragtay nin edeb badan inuu yahay nin ixtiraam badan inuu yahay markay haweeneydii soo fushay muu eegin wajigiisu fororiyay baabuurkiisu iska watay wuxuu ku yiri xageed rabtaa waxay tiri magaalada i gaarsii waa yahay buu yiri magaaladii buu keenay way weydiiso magacaabay ku tiri aadan baa la yiraahdaa buu yiri aadan ayaa la yiraahdaa buu yiri waxay ku tiri maxaad ka shaqaysaa wuxuu ku yiri taksiile ayaan ahay oo taksigan ayaan ku shaqaystaa meel maqaaxiya markay isoo dhawaatay ee tiri halkan u joogso waxay doonaysay lacag fiican inay siiso wuxuu ku yiri may iska haysa lacagtaada Allah ku barakeeyo waxay tiri may inaan ku siiyo oo ku gargaar ayaan doonayaa bay tiri may ilaahay dartiis ayaan kugu gargaaray buu yiri
dhibaato iyo madowgaas kaagama tagan iyo cidladaas inaan cidlada kaaga tago oon ku dayaco ayaan diidayay buu yiri sida awgeed lacagtaada iska hayso Allah ku barakeeyo buu yiri waxay ku tiri may waa inaan ku siiyay tiri waxa uu ku yiri ma wanaag baad doonaysaa inaad ii samaysid oo lacag isiisid haabay ku tiri waxa uu ku yiri dadka dhibaataysan ee masaakiinta u gargaar wixii qof dhibaataysan ee miskiin oo ka yarimaado u gargaar ilaahay adigana waa ku gargaar wassalaamu calaykum buu ku yiri iska dhaqaaqay haweeneydii runtii ninkan la yaabaneed waxay gashay maqaaxidii ayay gashay way fadhiisatay cunno ayay dalbatay qabow baa jiro roob baa soo haysta dhulka wuu soo madoobaaday magaaladan aad oo ma kala taqaan xaqii dibay doontay inay sharaab iyo shaah yar ka cabto kadibna ay hodeel ay seexatay raadsato haweeney baa u timid waxay ku tiri maxaad rabtaa aan ku keenaa way u sheegatay dalabkeedii wixii cuni lahayd iyo wixii cabi lahayd bay u sheegatay haweeneydii ayaa u fiirsato waxay tiri waxay tiri waa daalantahay maxaa ku helay waa gabadhii shaqeynaysi ayay ku leedahay gabar yahay gabar daalan baad u egtay maxaa ku helay gabadhii shaqaalaha waxay tiri uur baan leeyahay oo waxay ku tiri miyaad iska nasatid miyaad aqalkaadii joogtid maxaad u daalaysaa maxaad u rafaadaysaa maxaad isku kadeedaysaa waxay tiri waxaanan helaynin ilmaha yar wixii aan ku dhali lahaa iyo wixii dhar aan ugu iibin lahaa iyo wixii aan ku soo dhaweyn lahaa ayaanan haysanin sida awgeed waa inaan shaqaysto inta aanan dhalin waayahay bay tiri haweeneyda cuntadii ba iska cuntay sharaabkii ba iska cabtay kadibna warqadii markii loo keenay ayay gabadhii shaqaalahayd lacag ziyaada ugu dartay oo tiri orod oo soo bixi tiilka tag soo bixi markii ay sarifka soo qaadaysay ay baaqiga u soo celi istiri haweeneydii meesha way ka kacday warqadna way u dhigtay waxay ugu qortay warqada baaqiga adiga iska leh miiska hoostiisana lacag baan ku galiyay waxaan doonayaa inaad ii ducaysid lacagtaana waa lacagtii ilmaha yar aad ku dhali lahayd ku soo dhaweyn lahayd dhar ugu iibin lahayd wuxuu ugu baahan yahay oo dhan oo ugu fulin lahayd baahidiisa oo dhan haweeneydin mushaarka ay qaadata shaqaalaha waa 6 goor oo laabay lacagta haweeneyda lacagta hoos gelisay يعني 6 bilood oo soo socotay mushaarkeeda u qadintay Allahu akbar haweeneydii way faraxday isla waqtigiiba way orada haweeneyda shaqaalaheed waxay u tagtay ninkii u shaqeynaysay waxay tiri ma shaqeyn karayo anigu ee fasax isii tiri sidii ayuu fasax ku siiyay ninkii hoteelka iska lahaa ayadoo intii yarayd baaqigaheed iyo lacagti gaban ayadoo intii yarayd baaqigaheed iyo lacagti kale ayadoo haysato ayay orado waxay aaday aqalkeedii ayadoo faraxsan oo bishaaraysanayso albaabkii bay gargaraacday odaygeedii baa ka furay wuxuu ku yiri maxaa ku helay maanta waqtigii waad ka soo horeysay ma dhalmadii baa timad may bay tiri ilaahay faraj buu ina siiyay lacag ilaahay faraj buu ina siiyay lacag aan ilmaha ku soo dhaweynay buu ilaahay na siiyay aadamow haweeney barakaysan ayaa lacagta isiisay aadam ma garateen aadam waa kii tagsiilaha ahaa aadam waa kii u dardaarmay haweeneyda qofkii dhibaataysan u gargaar u kalme haweeneydii wanaagii uu qabtay waxay haleeshay islaantiisii ayay wanaag haleelay khayrkii xaggan uu ka soo baxay khayrka marna ma dayacmayo ilaahay kuma hoojinayo ilaahay waa wanaag iyo khayr ayuu kula doonayaa haweeneydaasi wanaaga odaygeedii uu sameeyay xaggan ayay ka heshay ninka rafaaday tagsiilaha ahaa ee haweeneyda wanaaga u sameeyay wuxuu ku helay inuu naagtiisa hadana wanaag loo suubiyo waxaan ka faa'iideysanaynaa
qisada inay cibro iyo wanaag ay ku jirto waxaan ka faa'iideysanaynaa inuu wanaaga marna u lubaynin walaalahaygiyo waa wanaaga aad fasho waad heshaa waqti kasta waa la helaa marka marna ma soo daahiro wanaaga aad fasho waad helaysaa adiga hadaad helin ehelkaadi baa helayo marka waxa ina leeyahay hal la isu wanaajiyo hal isu dardaarmo wanaaga waa walaalkii Shaakir oo ina leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi